haddaad degantahay magaalada Columbus Ohio aad tahay gabar ama wiil darbiga ka soo booday muuqaalkan muhiim ayuu ku yahay waxaan rabaa inaan la wadaago sheeko saakay Columbus Ohio ka dhacday oo muhiim ah oo u baahan in iska ilaalisaan ICE ayaa waxay bilaabeen in dadka guryaha ku soo furaan xaafadaha qayb ka mid ah waxay bilaabeen in xaafadaha xafiiska tagaan la hadlaan kadibna kuwa xaafado intay tagaan xaafada u furaan laakiin saaka waxa dhacday gabar Soomaaliyeed oo hero ah ayaa arinkaasi ka hortagtay oo badbaadisay in dhalinyaro Soomaaliyeed inta guriga aan lagu furin aysan ICE soo xirin gabadhaasi waa la hadlay muddo hal saac la hadlay muuqaalna waa isoo dirtay gaariga ay wateen iyo information kooda waa idin hayaa inta aan sheekada marka idin bilaabin xaafadu waa xaafadan aan idin soo saaray waxa la magaceeda The Residence at Town Central laha reer Columbus way yaqaanaan waxay ku taalaa wadada Stelzer Road waxay ka sokaysaa intaan la gaarin xaafada Albany Club waxay ka soo horjeedaa xaafadaha cusub ee Stelzer laga dhisay mar dhaweeto waa guryaha cadcad ee meeshaas ku yaala waxaan rabaa inaan reer Columbus dhamaantiin xaafadaas la markada la waco xafiiska la tago la weydiiyo sababta ay ICE uga shaqeynayaan aniga waan tagi lahaa laakiin wali magaalada Columbus Ohio waan ka maqanahay marka arrinkan intuusan sii badan xafiiska hal la tago lambarkoodana hal la waco hal la weydiiyo sababta qof guri ka kaleystay oo lacag bixinaya ay waxa way xuquuqdiisa ugu ciyaarayaan oo ICE ay faraha u siinayaan waa qalad sharciga ay jibinayaan waxbayna hortida ku dheereen aan idin ka dabageystay saaka sheekada u dhacday iyo gabadha Soomaaliyeed ee geesiyada ah sida ay reerkaas u badbaadisay waxbayna warkii ku daalin sheekada ayaa idin bilaabaya gabadha ayaa waxay tahay aniga fariga iska fadhiyay waxaan arkay laba gaari oo baakin ka soo gashay kadibna waxa ka soo digay laba askari oo ICE ah ayay tiri ninna cadaan buu ahaa ninna madow ayuu ahaa bay tiri way bixeen jaranjarada ayay koreen guri aan ogaabay tiri inay Soomaaliyeed degan yihiin ay garaaceen bay tiri abbaar markii garaaceen muddo 5 daqiiqo ah garaacay ay joojiyeen labada nin ayaa isla hadlay mid ayaa meesha sii joogay kii madowga ahaa kii cadaanka ayaa jaranjarada ka digay kadibna wuxuu aaday dhinaca xafiiska tiri xafiiska dhinaciisa markuu aaday abbaar buu maqnaa bay tiri muddo 10 daqiiqo ka yar buu maqnaa 5 daqiiqana ka badan wuu soo laabtay bay tiri markuu soo laabtay wuu soo socday bay tiri baan albaabka ka soo baxay bay tiri marka albaabka ka soo baxay ayaa waxay arkay kii soo socday ee cadaanka ahaa laakiin kii madowga ahaa uma jeedo markaas wuxuu ku yiri furihii ma soo qaaday kii cadaanka ahaa oo gabadha arkay ayaa wuxuu yiri tu aamusay maya ayuu dhahay hadalkan uu istaajiyay waayo gabadha ayaa aragtay kadib kii madowga ahaa ayaa arkay in gabadha ay aragtay wuna soo digay kadibna gabadha ayaa waxay ku dhaheen maxaa naga fiirinaysaan gabadha markaan camera uma daarna markaas waxay ku tiri ma idin fiirin kara miya markaas uu rimayo isaayada noo fiirinaysa gabadhii markii sheekada saas bilaabatay ayaa waxay bilaabatay telefoonka kamarada ee forto waayo nimanka waxay bilaabeenba maxaa noo fiirinaysan erahan gaarigay galeen markii kamarada la soo baxday nimanku waa bixin waa yaaceen waxay tiri nimankii oo 5 daqiiqo camal sii maqan bay tiri ba waxaan arkay shaqaalaha xaafadda u shaqeeya mid kamid ah oo soo socda soo socday uu soo dhawaaday kadib waxaan arkay ninkii jaranjarada sii koraayay jaranjarada markuu koray ayuu wuxuu sii aaday dhinaca guriga waan soo baxay waxaan ku iri ma ICE baa la shaqeysaan baan ku iri ninka intuu naxay oo hal mar qalqalay buu wuxuu yiri ICE lama shaqeyno aniga shaqaale caadi ah xaafadda ka shaqeeya waxaad mas'uulkayga maahan su'aal is weydiin buu ka jawaabay kadibna wuu laabtay jaranjaradii ayuu dib uga laabtay meesha uu socday muusan aadin gabadhu waxay tiri markaas waxa ay cadaatay ninka inuu nimanka guriga u furi rabay ninkii markuu iga tagay bay tiri oo soo qalqalsan oo dhahay aniga shaqaale ah waxba igama gelin waxa ma suubiyo meeshii uusan aadin bay tiri uu maqan yahay muddo 10 daqiiqo ka yar ba waxa soo laabtay labadii askari oo ICE ka habitay markay soo laabteen baakinka istaageen markay baakinka istaageen xoogaa bay ku jireen bay tiri waa laabteen bay tiri kullee markuu xafiiska soo wacay ma waxay ku dhaheeniyoo qof baa meesha taagnaa ma waxba dhacay kullee nimankii waa tageen bay tiri laakiin waxay tiri ninkaasi haddii aniga aanan soo bixi lahayn gurigu furi lahaa kadibna nimankan baa soo laaban lahayn kadibna guriga geli lahayn bay tiri marka Soomaaliyay reer Columbus xaafadaas hal la tago xafiiskooda hal la waco hal la weydiiyo sababta ay arrinta usoo binayaan xaafado badanna way jiraan xaafadaha kana hal la tago xaafad kasta hal la tago hal yiraahdo dadka furaha ma siin kartaan ICE waa qalad waay waa wax sharciga jebinaya waay gabadhaasna khayr Allah siiyo saakay dhalinyaro Soomaaliyeed ayay badbaadisay oo guriga lagu furi lahaa markay kamarada arkeen ayay carareen ninkiina markuu kamarada ku guriga furay ayuu cararay xaafadaas hal la tago telefoonka hal la waco hal la weydiiyo sababta qof xuquuq leh oo guriga ka kaleystay ee furihiisa guriga ugu furayaan waa gurigiisa ay furaha ugu furayaan ICE ay siinayaan waa qalad waay muuqaalka reer Columbus hal la gaarsiiyo sheekadu waa isbedeshay xafiisyada ayay tagayaan furayaasha ay soo qaadanayaan marka fadlan muuqaalka reer Columbus hal la gaarsiiyo
الله اللي مداديو الله أسد كقبته قرية هلا جو سهرة كوش شيء رغاق هلا يليو ولكن شكرا لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.